dhinaca kalena waxgarad Soomaaliyeed iyo wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa gaaray magaalada Beledweyne si ay uga qayb qaataan dadaalada lagu joojinayo dagaal beeleed dhawaan ka qarxay gobolka Hiiraan. warbixinta warkan waxaa inoo soo diray wariyaheena Cabdishakuur Cismaan Cali. wafdigan oo isugu jiray wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka Hirshabeelle iyo qaar kamid ah waxgaradka Soomaaliyeed ayaa maanta soo gaaray magaalada Beledweyne waxaana wafdiga soo dhaweeyay gudoomiyaha gobolka kan degmada Beledweyne iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. مسؤولينta wafdigani ayaa waxa ay sheegeen in ay Beledweyne u yimaadeen sidii ay u xalin lahaayeen dagaal beeleedyada dhawaanahanba ka socday deegaanada hoos yimaada degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan iyo sidii dadkaasi walaalaha nabad loo dhaxdhigi lahaa. gudoomiyaha maamulka gobolka Hiiraan Cumar Aadan Deeqow oo munaasabad kooban lagu qabtay xarunta gobolka ka hadlay ayaa wafdiga soo dhaweeyay. waxaad ku soo dhaweynaa horta marka hore soo dhawaada gobolka Hiiraan gaar ahaan degmada Beledweyne. mar labaad waxaad u timideen arrin xasaasi ah oo dad walaalaha isku dhacay waxaan rajaynaynaa inaan ka wada shaqo saa u bixi lahayn marka dagaal aan u dhiganaynaa taas marka hore soo dhaweyntii iyo mataqaanaa marxaba adana soo dhawaado waxaan isla wada qaybsan karnaa insha Allah taala wixii oo mataqaanaa fikrad iyo wixii tusaalana dib baa isku qaybsan doonaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. wasiirka dib u heshiisiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle Yuusuf Ahmed Hagar iyo wasiirka bii'ada iyo horumarinta reemiyiga Cabdikariin Nuur ayaa dhamaantood baaq u diray beelaha walaalaha ee dagaalamaya. wafdigaana waxaan ka koobanahay 3 wasiir iyo dad oday dhaqameedyo ah iyo dad kale oo maartay siyaasiyiin intaba ujeedaduna waxay tahay inaan ka hortagno ama aan insha Allah wixii dhacay wayba dhaceen wax dambe aysan ka dhicin dhibaatadii ka dhacday baanyaalay aniga ka wasaarad ahaan wasiirka bii'ada iyo horumarinta reer guuraaga ayaan ahay marka aniga dadka isdiriray dadkaygii reer guuraaga iska kay diriray marka si qaas ah aniga ii qusaysay safarkaaynu wuxuu ku saabsanaay Hirshabeelle qayl ka soo yeertay ama Hirshabeelle diriskeeda hadii la rabo loo dhigo qayl ka soo yeertay mar hadii gurigaaga qayl ka soo yeertana meeshaad joogto waa ka soo ordi dad oday tahay waxaan u soo ordi gurigaaga xigta qayladii ka yeertay waxaan leeyahay qaylada intii hore Allah ku simo wixii dhintay Allah u naxariisto wixii noolna Ilaahay muwaafaqaha ka dhigo ayaga intay wax kala dhaxayaan waxaan leeyahay qof kasta oo arintan qusayso ama dhibaatada meesha ka dhacday ay qusayso waxaan ka codsanaa inay dhanka wanaaga ka istaagto si wanaag guud loo wada gaaro. wasiirka arrimaha gudaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle ayaa dhinaciisa sheegay in iyagoo kaashanaya maamulka gobolka Hiiraan ay tagi doonaan deegaanadaasi si markaasi maleeshiya beeleedka Sorfadhiye loo kala qaado. ugaasiyada mid waxaan u maleynaa intuu joogiyaa ugaaskii kala xal 6 saac ay ugu dambeysay iyo wax la jira waxaan rajaynaynaa hadii Ilaahay yiraahdo in uu nagu soo biiro maalinta Axadda hadduu biri nagu soo biiro way Axadda waa nagu soo biira insha Allah taala asuguna sidaas oo kale ayuu maarata salaan iyo soo faray waana soo socdaa waana imaana ugaaskana haddaan wada hadlaynay taleefankana kala ma dhigno gurmadkana waa ku jirnaa annagoo idin la jirnaa hal laga xisaabiyo marka waxaan idin ka rabnaa sida uu sheegay wasiirka iga horeeyay hadda wixii tawjiihaad iyo qaabkii loo socon lahaa cidii loo yimidaa oo meesha loogu yimidaa laga rabaa inay hor kacdo. Cabdishakuur Cismaan Cali, SNTV, Beledweyne.